iyagu qabaan inay Soomaaliya ka gooyaan annaguna iyaga ayaan ka sii gooyna annagu Soomaaliyaanu nahay ummad Soomaaliyeed baan nahay gobolka awda weligii kuma yaamiin oo ay dadku waxay ka xishoodeen oo ay foolxumo u qaateen inay dudumiyaan qarankoodii maanta inuu Muuse Biixi maanta intuu degta ku qaato hamoodina reeyadoo inuu degteedii ku qaadanayo halka ay geenayo innaga wada hadallada waxba inaga ma qoseeyaan sababtoo ah inaga inama ay dhibaatayni dawladii Maxamed Siyaad Barre innaga inama ay dhibaatayni iyaga ay dhibaato Soomaha iyaguna iyaga qaran dumisaayo Itoobiya soo raacay marka inagu waxa weeyaan inaynu ma taqaanaa midnimadeena ilaashano weey ma fahanti qarannimadii ummadda Soomaaliyeed baa la difaacay iyaguna qarannimadii ummadda Soomaaliyeed bay burburineen inagu ma nihin dad aan cadow kuma nihin ummadda Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed beenay sharafkeena qofka bilaadka waa inuu dawladnimada sharafteeda yaqaano weey hadii uu dawladnimadiisa ka baa sheego oo waxa uu yahay iyo jiritaankiisa qariyo waa sida SNM kale maanta waxaad ogtiin in mar allaale marka la galo wada hadallo ay soo qaataan inay yiraahdaan waana la xasuuqay 24/7 waxay leeyihiin waana la xasuuqay marka in dadku dawladnimada bartaan maanta reer awdal waxa lagu maaweeliyaa nabad baad haysataan war waxa loo cadaalad sameey kari waayay laba nin oo dhalinyaro ah oo laga qabtay oo lagu eedeeyay itixaadna imka way baabaaday ayaa 6 iyo 10 sanadood bay ku xidhayeen Hargeysa nin reer awdal oo ka damqaday idinku jira dhamaantii cadaalad looma sameeyay ragii kale ee la xidhnaana xiisi Xaaji Cali baa siidayo cadeynteedii waan nuuhaynaa hadii aad ma taqaanay reer awdal aad waxa ku sii jirtaan ceebtiina iyo foolxumadiina baa ma taqaanay aad ma taqaanay aan ma garanaysaa noqonaysa waayo ninka 10 sano xidhnaa ee 10 sano kala loogu daray aydaan ogeyn ayda free Cabdimaalik Caldoon free fuad baad ku soo qarta ragana waa ragga awdal itixaad baa lagu eedeeyay argagixiso waxa jirin waa inay dadkeenu yeeshaan damiirka iyo dadnimada hadii ay idinka tagaan waxa la idinku maaweeli doonaa SNM baa dawladdiina war SNM shalay toolo iyaga oo wata Itoobiya Ismaaciil Cumar Geelo uu ka soo taageerayo ma taqaanay dawladda Djibouti taageerayso oo jabhadii oo hubkii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed wata bay dila burburiyeen boorame soo galeen dad bay ku laayeen ma waxa tiraadaan wayna shaqeen baad tiraadaan waa inaynu inagu ummadda Soomaaliyeed diyaar baynu alaykum horta anu marka shaqsiyaantayda iska hadlo ama mabda igu jira mar hay igu jira horta anu ma taageertin Soomaaliland anu kaliya waxaan dalku midoobo oo mid kaliya noqon taageerta madaxweyne kaliya yeesho muuqafkayga ka hadlaya waayo qabiil kaliya ma noqdo gararsa qarar ma noqdo waayo maanta wixii dhaqaale la soo bixinayo wuxuu hoos dhimanaya farmaajo inagu waan daba istaagayna marka waxaan ka wasab bixin leeyahay qabiil kaliya qarar ma noqday waxaan ku leeyahay dalka mide oo noqon madaxweyne maamul goboleed ina hal-abuurada gobolka Awdal kana tirsan abwaanada in gobolka Awdal ee wadanka Soomaaliland waxaan kaadan aragtidayda ama fikirkayga ka dhiibtaan doonaya shirka ka socda wadanka Djibouti ee laga hadlayo xaaladda Soomaaliya ama Soomaaliland dib u heshiisiin Soomaaliya oo Soomaaliya isugu timaado ayaan ra'yigayga ka dhiibta doonaya horta waxa weeyaan aniga fikirkayga Soomaaliland iyo Soomaali weyn ma kala maarmaan Soomaaliya oo dhan ma kala maarmaan leh Soomaaliya oo dhan ma kala maarmaan waan ilaa 60kii umba hadana abwaanada iyo fanaaniinta aan laga soo heesayay samakuma heshiyay Soomaali hore ma u socona Soomaali doylay la 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 hore ma u socona mise saba kufankiyo silcaad ku noolaan silcaa lagu nool yahay dhalinyarada waxa naga horta daadayada horta waa nasiib daranahay dawladda Soomaaliyeed ka dambeeyay waxay dhalinyarada ku dhamaatay tahriib qax dagaal iyo xabad qori afkii bay ku dhamaatay waxa loo baahan yahay madaxda Soomaalidu meel ay isugu tagaan oo qaran Soomaaliyeed hadhisan waxana ha qaybsadaan ummadana khayraadka wadanka ku jira laga gaajoonay laga tahriibayo haloo saasara adduunyada waxa la qaybsanaa leey waxaan ku soo dhamaanay anigu waxaan marban ka hadlay Soomaalinimada halka aniga shakhsiyan ay iga taagantay waxaan idhi marka baabeegi iyo darxmadeeda iyo fulxmadeeda markaan ka yaabay yaani ka yimid Suudaan makana ka yimid Sacuudi ayu dhawaakeeda Syria ka yimid Soomaaliya mid baan heesteen noo kala tagnaa annagu gobolka Awdal hadaan nahay Soomaaliland waxa la waxaan ku qabnaa ma jirto nabadda la sheegay ku naaloonayaan markastay madaxda Soomaaliland wax ku doonayso ay dibadaha ugu faanasay leedahay nabad baa ku naaloonay annagu gobolka Awdal hadaan nahay nabad ma aanan arkin tan iyo maalintii dawladda Soomaaliya burburtay
nabad habeenna maanaan arkin waayo raggayagii baa meel kasta lagu xasuuqayaa iyagoo hurdaa la gowracayaa iyagoo safaraa la gowracayaa yaa loo raacay raggii la gowracay iyagoo bayc mushtarar oo ganacsato ah doonanaya safar la gowracay ayaa loo raacay ayaa la weydiiyey ayaa maanta maxaa xaqoogiis la siiyey raggii maanta iyagoo hurda oo seexday la gowracay ayaa loo raacay ayaa maanta maxaa ku dhadayay la weydiiyey annagu nabad mabaanaan arkin iyagoo saraakiiloo calankii somalilan baan u shaqaynanaa leh ayaa la gowracay oo soomaali maanta aanay somalilan meel la saarin gobolka awdal annagu caburin baa lanagu hayaa cabsidaa raggayagii haysa ka hadla waa la xidhayaa rag baa halkaa laga qaaday oo la xidhbuurama ku hadlaya afka dhalinyarta gobolka awdal annagu haddaan ra'yiga ka dhiibanno annagu somalilan waa nahay ma diidanin somalilan waa dhulkaygii waa dadkaygii laakiin walaalayaal qarniga la jooga waad ogtihiin wakhtiga la joogo waa ogtihiin waxa weeye caadifaddu inay shaqaysan maaha caqligu waa inuu shaqeeyo godob waa la kala galay taariikhda eega jarmalka eega iyo faransiisku say isku galeen dagaalkii koowaad baa dhacay kii labaad baa galay maanta ummaddu way midowday ya waxa weeye waxa loo baahan yahay midnimo ayaannu u baahannahay haddaannu gobolkii awdal nahay soomaalinimoonu taageersannahay jinsigayga waa soomaali baan nahay kala go' noogu filan jabuuti oo naga go'day way nagu filan tahay NNFP naga go'day way nagu filan tahay intaan noo soo hadhay maanta ma ogoli in lana kala gooyo miraas kambooni ilaa saylac walaalayaal annagu haddaannu nahay gobolkii awdal waxaannu doonaynaa inaan soomaali midaysan aan noqonno ya intaas noogu filan maanta in jabuuti silig lanagaga xidho oo jabuuti silig nagaga xidhan tahay oo annagoo soomaaliya aannu ku maaragtay nuku marayno baasboor iyo lana kala qaaday maantana in lana kala xidho oo xadna noo kala sameeyo intan yar noo soo hadhay walaalayaal waxaan leenahay annagu taa ma ogolin haddaannu gobolka awdal nahay waxaannu taageersannahay midnimada ummadda soomaaliyeed inaannu wada noolaanno ninka saylac ka tegaay isagoo aan wax la weyddiin waxaannu doonaynaa inuu toos u tago raaskamboori inuu u shaqo tagaan doonaynaa muqdisho ka muqdisho ka yimaaday gobolka awdal inuu shaqo yimaadaan doonaynaa walaalayaal histariga ha la eego caalamka ha la eego dadkan hoggaaminaya madaxda waxaannu leenahay walaalayaal dadkiina u tudha maanta adduunyaad joogtiin berina aakhiraad joogtiin dadkii godobta kala galay aakhiray joogaan ilaahayba la joogaan waxaannu doonaynaa mustaqbal ifayaan doonaynaa waanad mahadsantihiin hadalkayd nugu dheereen maayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadaama wixii siyaasada aan cid uga dambaynaa ay jirto waxay ila tahay waxay noo soo qaadaan inay tahay wax wanaagsan oo inaan ku raacnaa ay mudan tahay waxaanse leeyahay waxa weeye inama almu'miniina ikhwa buu ilaahay yidhi dadka mu'miniinta ama islaamka waa walaalo weeyaan dadka walaalaha islaamkana in la kala fogeeyaa xaaraan baanu arkaa laakiin waa